haddana nahay beesha jareer weyne Soomaaliya afarteeda koono haday laga reebo Puntland inteeda kale xaqeena xuquuqdeena in lagu tunto aan ku dulmanay qaas ahaan caasimada Soomaaliya meesha lagu sheegay ee Muqdisho waxaan fariin u dirayaa madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre xaqiiqdii waxaad sheegateen nabad iyo nolol laakiin wax jira ma aha waadna fishalanteen waa sidaan idin ka rajeynaa ma idin ka filayna uma soo bixin marka koow waxa lagu weebeeraheeni waxa lagu weey haddana aan guryaheeni maantana waxa ku xigtay nin dhalinyaro aniga asaagayga 20 jir ah waalidkiisa in loo gubo gabar oo guursaday aniga waxaan joogaa caasimada Puntland ee Garowe waxaan leeyahay laba xaas oo u dhashtay Puntland waana noolahay miyaa la gubo waa may maantana waxa dhacday gobolkii aniga aan u dhashay iyo beerahaygi markii la gubaan kana kaga nimid micnihii hadii aan gabdhihii guursano haddana nafteena in la sii gubaay midaasna mid socon karta ma aha anaga waxaan nahay dhalinyaro 20 jir ah arinta maanta dhacday hadii dadkaasi sharciga islaamka sida oo qabo xaqooda loogu soo dhicin waayo waxa dhici doona wax yar ma aha waay aniga 20 jiraana uma adkeysan karna maalin walba walaalaheena waalidkeena in horteena lagu gubo mid kale oo jirta waxay tahay meel walba qofka bini'aadanka uu xaq iyo xuquuq bay leedahay Puntland waa hadeer maamul goboleed حقنا هلنا حقوقنا هلنا قبليه ينقرسنا جامعة دجنا أولاد بنكو دلنا جواري عسري بنكو بدنا نلشنا ومتسك عادية ما أنت مقدشنا واحد عادي هدي أد قادتي جالس جد بغلط دول جو أسكرت إني كقاضي دولة الدنيا أصلا كقوانين هدي أد قرصت قبله هذي إن ما ده حلقات وجنا بير هدي تعبدتنا إن دبلة جا قوانين عد كهذا ليس أنا مجرته أنا هذا الكمسير إيران هاي مدة أن كهذا لا واحد هاي ومدة مساكين تاه إدت كود للدليل المها لا أجونتي أبود لقى دحبحي qoyska hadii lagu qasbo in ay mag qaataan lagu cadaadiyo anaga hadii aan nahay dhalinyarta beesha jareer weyne go'aan cad baan ka qaadanaynaa Allahu naxariistay Mukhtaar Axmed Dowr oo ahaa muwaadin Soomaaliyeed ayaa geeridiisa waxa siyaabo kala duwan uga hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed hay'adaha garsoorka ayaa laga sugayaa natiijada xukunka dambiilihii geystay falkii arxandarrada ahaa Maxamed Cabdiwali Nuur Timire SBS TV Garowe